waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta hawshii halkan ka dhacday ee ahayd musharixiinta dhageysigoodii Ilaahay noo suurta geliyay nabad geliyay ma hadda Ilaahay iska leh intii arintaas ka soo shaqeysay ee guddiga doorashada ugu horeeyo oo ka soo qayb gashay sidoo kale waa mahadcelinay shirkan galabta aan qabanay wuxuu yahay maanta waxaan dhageysanay khudbadii musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jadwalka noo qorna wuxuu ahaa bari oo bishu tahay 30 maalin khamiis ah in doorashadu dhacdo saasa ballanka iyo jadwalka iyagu ahaa idaacadaha ka sheegnay jadwalkana noogu jilay waxaan rabnaa inaan guddiga markuu is warsaday shir dheer oo aan qaadanay waxaan dib u dhignay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan u dhignay muddo 3 bari ah oo ah jimcaha iyo sabtiga khamiista bay dhici lahayd khamiista iyo jimcaha iyo sabtiga saddexaas maalmood dib u dhigno waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro oo qorshaha iyagu yahay maalinta axadda doorashadu inay dhacdo sababta ugu dhigna waxa weeye codsi nooga yimid gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dhammaan guddoonkiiyo labada gudoomiye ku-xigeen codsi kale oo nooga yimid musharaxiintii maanta halkan khudbadda ka akhrisay oo 9 xubnood ahayd oo 4 u tartamaysay madaxweynaha 5 u tartamaysay madaxweyne ku-xigeenka codsigaas oo ah 3 bari inay galaangal siyaasadeed sameeyaan xildhibaanada ka kaabinax gareeyaan isdiyaariyaan qorshahaas inoo soo gudbiyaan anaguna waa aqbal waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ummadda reer galmudug dhammaan dadkana dhageysanaya xildhibaanada sharafta shaqada noo dhiibtay dhammaan waxaan u sheegaynaa doorashadii galmudug axadda inay dhacayso haddii Ilaahay qadar soo socota labada oo ku beegan labada bisha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.